السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabay insha allah maadaama ay rabadaan tahay waxa weeyaan waqtiyada rabadaanka inaan ka faa'iidaysano oo sidii aan iskaga ilaalinay waxyaalaha saliidda leh. waxa weeyaan saliidda cholesterolku kicinayaa, marka insha allah waxaan rabay iyo macaankaba qudhadiisa saliidda uma fiicno. marka waxaan rabay faa'iido badan geedkan oo meelaha qaarkood la yidhaahdo geedkii nebi muuse, geed haddii kalena waxaa la yidhahdaa warqul qaar ayaa la yidhahdaa, amba ingiriishkana bayleaf ayaa la yidhahdaa. wakaasi waa bayleafs weeyaan. marka maasha allah warqul qaar amba geedkii nebi muuse, marka waa geed aada u wanaagsan. marka inaan ka faa'iidaysano waa dawo weeyaan, kolestaroolka, macaanka, wax walba waa ka dawo. marka insha allah waan karsanaynaa. waa kan halkan waxaan ku ritay 3 xabadood oo warqal qaara amba bayleaf, 3daas baan ku ritay. waan karinayaa. waxa weeyaan waqtiga iftaarka ayaad ka daba cabaysaa marka aad cuntid. wax kasta ood cuntid waxa weeyaan isaga ayaa kaa baabiinaya, saliidoo dhan ayuu ka saarayaa meesha. marka maxaa keena macaanka waxaa keenaya markay beeshiidkaagu amba meesha cuntada ridiqda ay shaqayn weydo, markaasi amba heredity oo familka ayaa laga qaadaa macaanka, dadka qaarkood ka qaadaan, dadka qaarkoodna caadi buu ugu dhacaa. marka waxa weeyaan kan bayleafskan amba warqal qaarka faa'iido badan ayuu u leeyahay. halkaa bankariyaaska agtiisa meeshaasi cuntada ridqaysa waxaa lagu bedelaa qofku hadduu macaan leeyahay onsuliinta amba wax irbada laysku mudo onsuliintaas oo qofku ka dhamaata ayaa lagu bedelaa onsuliintaasi. si bankariyaaska meesha agteeda ku taalo ay waxa weeyaan cuntada ridiqda meeshaas ayuu u galaysaa onsuliintu, si ay cuntada ugu ridiqdo markay awoodeedii gabto meeshaasi. marka insha allah waxaan rabaa geedkana aada buu faa'iido ugu leeyahay macaanka. wuxuu kugu bedelayaa irbadii aad qaadanaysay, onsuliintii aad qaadanaysay maalintii 2 jeer la qaadanaya amba dad baa 3 jeer qaata. marka insha allah qofku markaaba inuu iska gooyma, laakiin haddii uu doonayo inuu iska joojiyo onsuliinteed doonayo ha isku tareegareeyo amba ha isku karsado. sida shaah oo kale aad u karsanaysaa waqti kaste ood cuntada cunaysid, inkastoo imika rabadaan tahay waqtiga iftaarka ayaad cabaysaa. haddaad doontid dhagayarahaad ku darsanaysaa, haddaad doontid waxa weeyaan qorfaha dhaadheer baad ku darsanaysaa, gebigooguna waa wada faa'iido leh. haddaad doontid xulbad yar baad ku darsanaysaa. waxaan kuhi intuba macaanka waa kaa kaxaynayaan oo iyo kolestaroolka labadaba. haddii aad isleedahay oo maxaa la yidhahdaa dhiig oo maaragtay jirkaaga joogjoogsadoo kale qosol hindiga ayaa ugu wanaagsan. haddii aanad cunin kiniinka sprainka, haddaanad cunin qosol hindiga ayaa u wanaagsan dhiigu hadduu waxa weeyaan gunguntumaayo. marka insha allah waxaas oo dhan macaanka ayaan maanta ka hadlay, laakiin cajiradaha halka hore ayaan kaga hadlay. maxaa la yidhahdaa dhiigga guntay adeenka maxaa la yidhahdaa dhiigu waxa weeyaan joogsanayo waxaad kuu fiican qosol hindiga ayaa kuu fiican. laakiin haddii aad kiniinka cuntid oo waxa weeyaan springkaad cuntid ma fiicno, dhibaato ayaad kala kulmaysaa. cajirada hore ayaan kaga hadlay insha allah korka ayay wada yaalaan, waa laga faa'iidaysan karaa dhammaan, waa lasoo daawan karaa macaanka mar horaan ka hadlay. laakiin maanta waxaan rabay inaan bayleafka on kaga hadlay sida jinka oo lagaiskaga saaro oo la shidana ayaan ka hadlay bayleafska amba geedka nebi muuse waxaan kaga hadlay jinka ayaan kaga hadlay. laakiin maanta macaanka ayaan kaga hadlayaa. macaanka faa'iido badan buu leeyahay. wuxuu galayaa doorkii uu lahaa onsuliintu lahayd amba irbadii ay lahayd ayuu doorkiisa oo kale u galayaa. marka aada buu dawo u yahay, ha laga faa'iidaysto, faa'iido wanaagsan weeyaan. inkastuu rabadaanka u fiican yahay macaanku oo waxa weeyaan subagii badnaa iyo wixii badnaa aad cunayso, cuntadii badnayd oo waxa weeyaan kaa joogsanayo oo waxa weeyaan bankariyaaskaagu si fiican u shaqaynayaba. laakiin waxa weeyaan waxay u baahan tahay dad waxaa jira aanan soomi karin oo macaankooga serious yahay oona soomi karinba. kuwa aan soomi karin oo macaankooga aada u dhibaato ku haya waxay cabi karaan subaxdii bay cabi karaan. geedkan dhibaato uma keenayo, waqti kasta iska cabi karaan. sidii shaah oo kale ayaad u cabi kartaa. kolley waan soo karinaya insha allah. marka waxa weye waxaa kuu bedelayaa irbadii onsuliintii. intaad la qabsanaysid waad maxaa la yidhahdaa waad iska qaadan kartaa irbadaada, laakiin waxa aad dhici karta inaad iska joojisidba oo waxayaan bedelkiisii kuu galaba qaar
warqal qaarku ama bayleafska kuu galo faa'iido badan ayuu leeyahay insha allah. in badanna waan kasoo sheekeyn doonaa. maanta waxa weyaan waa rabadaan weeyaan, laakiin insha allah waxaan rabay dadka macaan kale inay iftaarka oo kale ay cabaan geedkan ay ka faa'iidaystaan, ay ku darsadaan sida maxaa la yidhahdaa qorfaha yaryar ka dhaadheer ay ku darsadaan kolestaroolka iyo macaankaba isagana waa ka dogo. marka insha allah sidee baan u samaysanaynaa? waxaan u samaysanaynaa saa idi tusay 3 xabadood ayaan ku ritay. 3 xabadood ayaan karinayaa insha allah. sidii shaaha ayaa idii tusi doona. ha laga faa'iidaysto markaad iftaarka cuntid, timirta iyo wixii aad cuntid aad leedahay aad ku afturaysid. hana isku badin saambuusaha saliidda, haddii kale laga ilaaliyo, haddii kale ofanka hala gashado. intaa saambuusaha iska samaysatid ofanka gasho. waxa weyaan saliidda badan iska ilaali. saliidda badan dhibaatay keentaa. waxaa kaloo keentaa dhagaxaan inuu beerkaaga yeesho. insha allah waan soo wadaa barnaamijkaana inaan ka hadlo beerka dhagaxaanta joogsanaya. waxaa la yidhahdaa isaga qudhadiis faa'iido uu leeyahay dhagaxda qudhadiisa. insha allah waan soo diyaarin doonaa. markaa saliidda badan dhibaato badan bay leedahay. ha la iska ilaaliyo waqtiga iftaarka insha allah. waxa weeyaan iyo macaanka badan baa la iska ilaaliyo, ma wanaagsano macaanka badanna. macaankaagana inaad qiyaasid ayaa fiican, oo wax yaroo macaan aad cuntid. laakiin jirka ayaa u baahan wax macaan in la cuno. laakiin ha isku badin waxa macaan aad cunaysidna waa in aad cuntaa wax jirka ugu baahan yahay. in yar inaad cuntid oo macmacaana ayaa u baahan jirka, maadaama jirka soo soomanaa maanta oo dhan awoodda ayaa ka tegaysa, khaasatan dadka macaanka leh. qofka macaanka leh hadduu soomo, dad waxaa jira tayb 1 iyo tayb 2. tayb 2 waa iska soomi karaa, oo waxa weeyaan haddii uu dhibaato ku ahayn waa soomi karaa. soomku waa dawo. ramadaanka waxa weeyaan macaanka caafimaad ayuu siiyaa qofka. markaa tayb 2 oo kale haddaan ka hadalno, waxa weeyaan uu baahan macaan. maanta oo dhan buu qofku soo soomanaa, marka waa inuu ku afturaa. wuxuu ku qasban yahay inuu wax macaan cuno, because jirkii ayaa awoodii ka tegaysaa. wax macaan haddaad cuni weydo waa daalaysaa. kolkaaba waxaa dhici karta inaad dhacdid oo seexatid. laakiin haddaad wax macaan cuntid, enerjigaagii amba jirkaagii waa soo noqonaya, daaqadaadii ayaa soo noqonaysa. marka insha allah laga faa'iidaysto. marka waxa aan maanta ka hadlayay macaanka iyo bankriyaaska. waxa weeyaan meesha cuntada ridiqda ee waxa weeyaan insuliinta irbada la siinayo in aan ku bedelano bayleafskan oo aad faa'iido badan u leh, amba warqal qaar oo faa'iido badan leh. marka insha allah inaan taa ku bedelano ayaan rabay. waxa weeyaan dadka tayb 2 ayaan la hadlayaa insha allah. macaankooga ee soomana wax macaanaha cunaan baadhi insha allah. markaa maxaan sameynaa insha allah? waxaan rabaa inaan soo kariyo oo si shaah ahaan aan soo kariyo, sidaad ula socotiin insha allah. hala isugu insha allah. asxaabi wakaa insha allah bayleafkii waan soo kariyay insha allah. waad arki doontiin wakaasi. asxaabay wakaasi insha allah bayleafkii wakaa shahaasi weeyaan. marka insha allah iftaarka ka bacdi ha la cabo. maasha allah macaanka oo dhan buu daadejinayaa, kolestaroolku baabiinayaa. insha allah laga faa'iidaysto. waa fursad qaaliya. waa dadka waxa weeyaan tayb 2 ayaan u sheegayaa hadday sooman yihiin. haddii uu qolooyinkan tayb 1kana waxa weeyaan waqtiyada caadiga iska cabayaan oo ma soomayaan. kulley dadka macaanka aadka u haya ma soomaan, laakiin qofka waxa tayb 2 uu iska soomi karaa haddii uu macaankiisu waxoogaa degan yahay insha allah. marka afturaya ana waxaa muhiimkay waxa iftaarka oo kale in la cabo bayleafkaasi insha allah. waxa weeyaan macaankan uu daadejinayaa, kolestaroolka uu baabiinayaa insha allah. suwaga halka bankriyaaska agtiisa meesha insuliinta buuxinaysa ee irbada loo qaato. waxa weeyaan cuntada meesha radqaysa weeyaan. haddii ay shaqayn weydo waa qofka waxa ku dhacaya macaan baa ku dhacaya. marka insha allah macaankaasi wuxuu u galaya halkii insuliinta waxaa galaysa bayleafskan baa galaya, amba warqal qaarka galaya. marka insha allah hala isticmaalo, ha laga faa'iidaysto. waa fursad qaaliya insha allah. aad baa idiin salaamayaa dhammaantiin. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. رمضان كيس إلهنا كارسيو. أدبان إدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.